madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa goordhaweyd gaaray magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug oo ay ka taliyaan maamulada Galmudug iyo Puntland. Madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa inuu tago deegaanada Galmudug gaar ahaan degmada Cadaado iyo waliba magaalada Dhuusamareeb. Farmaajo ayaa soo dhameystiray safar uu ku kala bixiyay deegaanada Puntland. Wariyaha VOAda Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warkan kooban noo soo diray. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha magaalada Gaalkacyo waxaana soo dhaweeyay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland Dr. Cabdullaahi Maxamed Ali Gaas iyo Ahmed Ducaale Geelaxaad iyo mas'uuliyiin ka tirsan labada dowlad goboleed. waxaa sidoo kale maanta ka qayb galay soo dhaweynta madaxweynaha dowladda federaalka iyo wafdigii la socday qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas'uuliyiinta labada dhinac ee gobolka Mudug. waxaa aad loo adkeeyay ammaanka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kasoo kicitimay qaybo kamid ah gobolada maamulka Puntland isla markaana muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa deegaanada dowlad goboleedka Puntland ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo ah safarkiisii ugu horreeyay tan iyo markii uu noqday madaxweynaha dowladda Soomaaliya ee dowladda federaalka Soomaaliya. runtii waxaa aad u muuqda magaalada Gaalkacyo maanta in gebi ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada dhammaantood ay isugu soo baxaan soo dhaweynta madaxweynaha dowladda federaalka mas'uuliyiinta dowlad goboleedyadana ay hogaaminayeen. xaaladda ammaanka ayaa aad loo adkeeyay waxaana sugaya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada. qorshaha madaxweynaha inkastoo codnaba aan laga helin haddana waxa ay warar ku dhow xafiiska madaxweynaha VOAda u sheegeen in madaxweynuhu uu ku sugnaan doono dhinaca waqooyiga magaalada Gaalkacyo ilaa iyo caawa maalinka berriyaana uu aadi doono dhinaca koonfurta magaalada Gaalkacyo oo halkaa loogu diyaar garoobayana in lagu soo dhaweeyo. mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada ayaa kulamo gaar ah la qaadan doona inta uu ku sugan yahay magaalada Gaalkacyo sida ay xafiisyada dowlad goboleedyada madaxweynayaasha ay u xaqiijiyeen VOAda. madaxweynuhu inkastoo uusan weli shacabka la hadlin waxaana hadda la filayaa in qaybaha kala duwan ee bulshada uu kula hadlo fagaara bartamaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. aad buu mahadsan yahay. kaas waxaa wariyaha VOAda Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo kasoo waramayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gaaray magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. koox hubeysan oo loo malaynayo inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa gubay 2 gaari oo ay saarayeen booliska dalka Kenya. gawaarida booliska ayaa marayay gobolka Lamu waxaanay galbinayeen gawaari kale oo ay dad rayidahii ku safrayeen. wariyaheena Gaarisa Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan kooban noo soo diray. raggan oo la aaminsan yahay inay ka tirsanayeen kooxda Al-Shabaab ee ku dhumaaleysanaysa qaybo badan oo ka tirsan gobolka xeebta ayaa ilaa iminka waxa la xaqiijinayaa in 2 gaari ay saarnaayeen ciidamada booliis oo galbinayay basaska rikaabka ee ka shaqeystay inta u dhaxaysa Mombasa iyo Lamu ay halkaasi ku gubeen. deegaanka Wito dhacdan ay ka dhacday ayaa wararka degdeg ah iminka inuu helina waxay sheegayaan in tiro kale ciidamada booliiska halkaasi ku dhaawacmeen balse ilaa iminka ma jiraan warar madax banaan oo ka soo baxaya oo sheegaya tirada dhabta ee dhimashada iyo dhaawaca halkaasi ka jiro. deegaanada gobolka xeebta iyo gobolka waqooyiga bari ee dalkani Kenya dhacdooyin saxiixiga ayaa waxay ka geysanaysay kooxo lagu tuunsan yahay inay ka tirsanayeen xarakada Al-Shabaab. laamaha amniga dalkani Kenya waxay inta badan sheegeen inay raacdaysanayaan qaarkoodna ilaa iminka ay xaqiijiyeen inay ku dileen qaybo ka tirsan deegaanka Boni oo inta badan ah deegaanka saldhigga u ah kooxdaasi Al-Shabaab iyo kooxda Jayshul Aamin oo dalkani Kenya ka jirto taageero ka helayso xarakada Al-Shabaab. Maxamed Faarax Shire VOA Garissa. halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa.
qaar ka mid a hogaamiyeyaasha caalamka ayaa ka falceliyey kana carooday hadallo gaf ah oo la sheegay in madaxweynaha maraykanku uu u isticmaalay wadamada afrika iyo dalka haiti midowda afrika ayaa madaxweyne trump ka dalbaday inuu raaligelin ka bixiyo hadalladaasi warbixintan waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan oo istuudiyaha igu weheliya aflagaadadan uu madaxweyne Trump u geystay dalalka Afrika iyo dalka Haiti ee ay Mareykanka dariskiin ayaa keentay cadho xoog badan oo Mareykanka iyo dibadiisaba ka dhalatay madaxweynaha ayaa hadalkan yiri mar uu la hadlayay qaar ka mid ah sharci dejiyayaasha Mareykanka afhayeenka qaybta xuquuqda aadamaha ee hay'adda qaramada midoobay Robert Conville ayaa hadalka Trump ku sheegay mid ay cunsurinimo ku jirto waxa uu yiri waxay la mid tahay iyadoo albaabada si ballaaran loogu furayo bini'aadanimada dhinaceeda ugu xun waxay la mid tahay in la sharciyeynayo lana dhiirigelinayo cunsuriyadda nacaybka dadka aan kula midka ahayn taasoo laga yaabo inay arbushto isla markaasna baabi'iso nolosha dad badan ayuu yiri waxaa la soo wariyay Trump inuu yiri isagoo ka hadlaya muhaajiriinta Afrika inay ka yimaadeen dalal bulaacada in hadalkan uu madaxweynuhu yirina waxa xaqiijiyay Richard Durbin oo ah senator dimuqraadiya oo laga soo doorto gobolka Illinois kaas oo qayb ka ahaa kulankan oo arrimaha socdaalka lagaga hadlayay dhinaciisa midowda Afrika ayaa aad uga cadhooday isla markaasna jimcihii shalay dalbaday raaligelin kadib markii ay maqleen in madaxweynaha Mareykanku dalalka Afrika ugu yeeray bulaacad hadalkan waxaa laga soo xigtay xafiiska midowda Afrika ee magaalada Washington DC hadalkan midowda Afrika ayaa lagu yiri howlgalka midowda Afrika waxa uu si adag u cambaaraynayaa hadalladan isla markaasna dalbanaya in laga noqdo raaligelin la siiyo dadka qaaradda Afrika oo kaliya maahe dhammaan dadka asal ahaan Afrika ka soo jeeda ee koonkan ku nool warbixinta xafiiska midowda Afrika ayaa lagu sheegay in baahi daran loo qabo wada hadallo dhexmara maamulka Mareykanka iyo dalalka Afrika si looga hadlo faham darrada aadka u weyn ee maamulku uu ka haysto qaaradda iyo dadkeeda xisbiga haya talada dalka South Africa ee African National Congress ayaa isna sheegay in hadalladii Trump ay ahaayeen xadgudub weyn Raul Beck oo wasiirka hore ee dhaqanka ee dalka Haiti ayaa sheegay inuu ka argagaxay kana cadhooday hadalladii Trump fariin dhinaca Twitter-ka oo soo diray ayaa Mr. Beck ku yiri mas'uuliyadda inaad madaxweyne u tahay dal weyn ma aha ciyaar ama barnaamij TV-ga laga sii daayo Beck ayaa intaasi ku daray in shaqada madaxweynenimadu ay u baahan tahay waxbarasho asaasi ah aragti goojo bini'aadanimo ah iyo waxoogaa garaada waxa uu yiri Mr. Trump bundada ama dhibcaha qodobadaas midkoodna kuma baasi karo aad buu u mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo warbixintaasi ku saabsanayd falcelinta hogaamiyayaasha dunida ee hadalkii Trump uu ku aflagaadeeyay ee la sheegay in uu meel ka dhac ugu geystay wadamada ku yaala qaaradda Afrika iyo dalka Haiti ayuu ahaa halkaad kala socoteena waa VOA galab wanaagsan markale dhageystayaal dhammaantiinba haweenka dalka Sacuudiga ayaa markii ugu horeysay taariikhda jimcihii shalay loo ogolaaday inay si toos ah garoomada uga daawadaan ciyaaraha kubadda cagta dumar badan ayaa markii ugu horeysay taariikhdii shalay daawaday ciyaar maxalli ah oo magaalada Jeddah ku dhex martay labada kooxood ee Al-Ahli iyo Al-Batin fadhiga garoonka ayaa ahaa u kala qaybsan rag iyo dumar talaabadan ayaa qayb ka ah isbedelada uu la yimid amiirka dhaxalka boqortooyada leh waa Mohammed bin Salman منير الغمدي waxay kamid tahay dadkii daawashada ciyaartii shalay ka qayb galay صراحة أول قرار يعني صراحة المفروض هذا من زمان يعني يكون بس الحمد لله إنه جاء في الوقت المناسب وإن شاء الله القادم أجمل بالنسبة للنساء يا رب منيرة waxay tiri daacadnimadii go'aankani waxa uu ahaa mid ay ahayd inuu hore u dhaco laakiin alla ma hadii waqti fiican ay yimid waxaan rajaynaynaa in waxa socda ay noqon doonaan go'aamo si weyn ugu fiicnaan doona dumarka garoonka kubadda cagta ee magaalada Riyadh ayaa galabta noqon doona garoonka labaad ee ay haweenka Sacuudigu markii labaad ku daawan doonaan ciyaar kubadda cagta iyadoo sidoo kale magaalada Dammam Khamiista ay ku daawan doonaan ciyaar kale oo halkaasi iyaduna ka dhici doonta waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inala socodsiinaya soona diyaariyay Jamaal Axmed Ismaan kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkan dhacay gudaha Soomaaliya waxaa ka mid ah
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan booqasho waxa uu ku tagay deegaanada puntland. waxa uu booqashadiisa uu ku bilaabay magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland, isagoo dabadeedna maray magaalooyinka qardho iyo boosaaso. dad fara badan ayaa halkaasi kusoo dhaweeyey. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa socdaalka madaxweynaha soomaaliya ee puntland uu ku tagay iyo sidoo kale mid la filayo inuu ku tago deegaanada galmudug, waxyaabaha socdaalkaasi uu ka dhigan yahay iyo waxa uu soo kordhin karayo. isla toddobaadkan ciidamada somalilan ayaa la wareegay deegaanka tukaraq oo 70 kilomitir u jirta magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland, kadib markii ciidamadii puntland oo halkaasi joogay ay meesha isaga baxeen ee kuwa somalilan soo galay iska horimaad halkaa ka dhacay. kadib dowladda soomaaliya ayaa weerarkaasi cambaaraysay, waxaase somalilan ay weerarkaasi ku tilmaamtay mid ay kaga jawaabaysay daandaansi ay ku eedeysay inay samaysay dowladda soomaaliya iyo maamulka puntland. sidoo kale isla qodobkaasi qaybta dambe ee barnaamijka ayaana ku qaadaa dhigi doona. ergeyga gaarka ee qaramada midoobay soomaaliya u qaabilsan Michael Keating ayaa toddobaadkan gaaray magaalada hargeysa, waxaana uu halkaasi kula kulmay madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi. waxay dhinacyadu ka wada hadleen arrimaha nabadgelyada gobolka iyo sidoo kale loo joojin lahaa xiisada ka haloosan deegaanka tukaraq. golaha wakiilada ee somalilan ayaa toddobaadkan ansixiyey xeer ka dhan ah kufsiga iyo tacadiyada haweenka. hore inkastoo maxkamadda ay arrinkaas u xukmin jirtay, waxaa jirtay in odayaal dhaqameedyo ay arrinku geli jireen oo si dhaqanka waafaqsan loo dhammayn jiray arrimaha ku saabsan eedeymaha kufsiga. ayaa xeerkani cusub waxa uu baabi'inayaa arrinkaasi, islamar ahaantaasina uu joojinayaa in oday dhaqameedyadu ay xalliyaan arrimaha ku saabsan kufsiga. dowladda soomaaliya ayaa heshiis ganacsi waxa ay la gaartay dowladda turkiga kadib markii ra-iisul wasaar ku-xigeenka soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo toddobaadkan booqasho uu ku tegay wadanka turkiga. ra-iisul wasaar ku-xigeenka socdaalkiisa waxaa ku weeliyay xubno ka mid ah golaha wasiirada dowladda soomaaliya. heshiiska iskaashiga ayaa labada dhinac waxa ay doonayaan inay ka kala faa'iidaystaan arrimaha ganacsiga ee labada dal. maxkamadda milamani ee magaalada nairobi ayaa waxa ay laashay oo waxba kama jiraan ay ku tilmaamtay guushii doorashada guddoomiyenimo ee gobolka wajeer uu ka gaaray maxamed cabdi kadib doorashooyinkii guud ee ka dhacay dalkaasi kenya sanadkii hore. waxay maxkamaddu amartay in doorashooyin cusub lagu qabto muddo 2 bilood gudaheed. tani waxay ka dambeysay kadib markii musharaxii lagu guulaystay uu dacwad ka gudbiyey doorashada siday u dhacday, una sheegay in wax isdabamarin ay jireen uuna ku qancin doorashada sida loo qabtay. waa tahay dhegaystayaal, barnaamijka aynu kusoo laabano sidaad horedhaxa barnaamijka ku maqasheen. madaxweynaha dowladda federaaliga ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan booqasho waxa uu ku tagay deegaanada puntland, halkaasoo booqashadiisu ay kaga bilaabatay garowe kadibna uu ku kala bixiyay magaalooyin kale oo isla puntland ka tirsan. waxaa madaxweynaha la filayaa in sidoo kale uu booqdo deegaanada galmudug marka booqashadiisa puntland ay soo gabagabowdo. safarka madaxweynaha haddaba muxuu kusoo kordhin karayaa siyaasadii soomaaliya iyo sidoo kale guud ahaanba marxalada wadanka soomaaliya, muxuuse faa'iido u leeyahay madaxweynaha iyo guud ahaanba dowladii? arrimahaasi waxaa la faaqidaya maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada kuna dhaqan magaalada muqdisho. maxamed, kusoo dhawo barnaamijka. marka hore, socdaalka madaxweynaha muxuu soo kordhin karaa? bismillah, maasanta jamaal adiga dhegeystayaasha v o a. dabcan safarka madaxweynaha garowe ka bilaabay si loo qorsheynayo waa socod safar xagga dhulka ah. marka midaas waxay niyadooda adkeynaysaa ama kor u qaadaysaa yani midnimadii soomaaliyeed. marka labaad waxay xoojinaysaa yani in bulshadu ay hogaankooda ugu sarreeyo uu sidaas u dhex joogo ama u dhex marayo. marka aragtiya badan oo qurux badan kasoo baxaysa socdaalka madaxweynaha uu ku tagayo maamuladaas. wuxuuna ogaanayaa kudhiisa baahida saxda ee meesha ka jirta iyo sida dowladda soomaaliya xoogaal ugu noqon karto baahida as-aasiga ee maamulada puntland iyo galmudug ka kala jira iyo bulshadaba si ay u nool yihiin. waxaa jirta in puntland iyo galmudug xiriirkooda muddooyinkii ugu dambeeyey mararka qaarkii gaalkacyo darteeda uu khilaaf soo kale dhex galay. madaxweynuhuna wuxuu imaan doonaa sidoo kale galmudug. marka socdaalkani ahmiyad gaar ah ma u lahaan karaa marka la fiiriyo nabadgelyada gobolka, guud ahaan gobolka midka marka la fiiriyo, iyo soo dhawaanshaha labada maamul ee puntland iyo galmudug oo muddooyin badanba ay xurguf siyaasadeed soo kala dhex gashay? jamaal, sida aad wada ogtihiin dabcan galmudug iyo puntland waayihii ugu dambeeyay waxay wadeen nidaam ka duwan kuwii hore u socday. waxay sameeyeen ciidamo isku dhafa oo ka shaqeeya amniga labada dhinac. waxaa xidhiidho toosa iyo mid dadban wada lahaa bulshada labada dhinac kasoo kala jeeda iyo hogaankoodaba. halkaas marka laga fiiriyo waxa waaye tallaabo fiican oo xagga nabadgelya ayay galmudug iyo puntland ay u dhaqaaqeen. midaan madaxweynaha socdaalkiisana dabcan wuxuu sii adkeyn doonaa yani iskaashiga iyo midnimada dadka walaalaha ee wada deegaanadaas, bacdama dowladda ay ka wada sarreyso madaxweynihii qaranka uu yahay. labada dhinacna dabcan safarkiisuna waa waxyaalaha la tilmaamaya kamid taha in
يعني وكسي ديرجلي دبض حد بلوغا لحوجية يصير حد خلاص عندنا وطبعا كوب قاعدين دونا كنا تغيير دونا مركب وفائدة بدن iyo hiil iyo wadajir xoog badan ay hadda Puntland iyo Galmudug ay muujinayaan dabcan safarka madaxweynaha si adkeyn doona in hawshaas lagu guuleeyo waa tawaad mahadsantahay ugu dambeyn adigoo si kooban uga hadlaya arrintan dagaalka tukaraq ka dhacay toddobaadkan sidoo kale cilaaqaadka marka la fiiriyo xuduudaha inta badan waxaa jirtay in ay maamuladu isku qabsadaan dagaalkaasi muxuu saameyn ku yeelan karaa nabadgelyada guud ahaanba maxaase dagaalkaasi xilligan la dhihi karaa waa sababta ka dambeysay inuu yimaado dabcan horta aragtiyo kala duwan jiro oo Puntland iyo Somaliland kasoo kala baxaya ama dad kale ay qabaan oo in yani safarka madaxweynaha la xiriirta aragtiyo kalena way jiraan oo dhehayso maaragtay dagaal awalba xuduudaha ku saleysan oo laakiin waqtiga waa nasiib darro indii cusubee Soomaaliyeed oo daato wax walba waa ku yimaade laakiin waa wax hadda aad u maleysay in ay siyaasad gadaal ka riixayso arrin wax dejinay ee jiraan inkastoo xaqiiqada saxda dagaalka keentay marka laga reebo in xuduudaha Puntland iyo Somaliland isku haystaan laga reebo ma jiraan وانا أرينا في الدراسة طبعا بدكم أيوة أركاين إيش وقتي عن وحلا بعاني عايزين ولي بقى اللي بيجوا حل ملحونا ومرأة بلان وباقنا ملحونا دولة الفدرال. أدبد ما سنتها محمد.